qaar ka mid ah madax dhaqameedka waxgaradka iyo waayeelka iyo waliba dhalinyarada gobolka Sanaag ayaa kulan degdeg ah galabta isugu yimaadeen hotel Gubade magaalada Ceergabo waxa ay taageero buuxda u muujiyeen isla markaasina hambalyeeyeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici oo gudida komishanka doorashooyinka Soomaaliland maanta ku dhawaaqeen inay yihiin madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ee 5 sano soo socota hogaamin doona talada dalkaasi iyagoo ka hadlaya arrimaha arrimo kalena waxa hadaladoodii ka mid ahaa halkan waxaanu ka hambalyeeynaa ama aanu bogaadinaynaa madaxweynaha cusub ee imika loo ku guuleystay doorashadii muddada dheer soo socotay ee ay dadku sugayeen Muuse Biixi Cabdi ayaan halkan aad uga hambalyeeynaa iyo dadkii badnaa ee ka soo shaqeynayay xisbiga kulmiye waxaan isugu nimay inaan ku hambalyeeyno madaxweynaha 5 sano soo socota ee maanta lagu dhawaaqay natiijadiisa ay ku dhawaaqeen gudida komishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyagana aad baan ugu hambalyeeynaa dhammaan waxaanu gaarsiinaynaa hambalyada marka waxaanu halkan hambalyo uga diraynaa madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Saylici oo ku guuleystay doorashadii madaxtinimada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa baanu hambalyeeynaa waa ku faraxsanahay waxaanu ku dareynaa dhalinyaro iyo waayeel u baxa nabadgelyada la ilaaliyo marka hore waxaan leeyahay hambalyo dhammaan reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan aniga ku hadlaya afka gobolka Sanaag waxaanu taaganahay hambalyada madaxweynaha cusub ee 5 sano soo socota aad baan u hambalyeeynaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Saylici waxaan halkan hambalyo uga diraynaa iyo guwaabin madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Saylici waxaan hawada ku soo marinaynaa horta leed caafimaad waxaan kugu soo xijinaynaa ilaa xilka kugu asturo madaxweynaha horena salaam fiican baan u soo gudbinay halkan waxaan ku hambalyeeynaa madaxweynaha cusub xilka hadda loo dhaarin doono waxaanu leenahay ilaahay kugu asturo xilka lagu dhiibay waxaan isugu nimay hambalyada madaxweynaha cusub waa guul soo hoyatay geeska Afrika oo dhan gaar ahaan reer Soomaaliland mar hadday si nabada inoo ku dhamaatay doorashadii uu ku guuleystay musharaxa Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay haddaanu reer Sanaag nahay anoo ku hadlay afka reer Sanaag waxaan leenahay waxa hambalyo leenahay Cabdiraxmaan Axmed Star TV magaalada Ceergabo.